إلهي هون حريستو مرحومة ضمانته ومرحومة وإنك هوسيسا ها بشي لويد بمهر كيدو ها sida ii sheegtay aqalgalkeedii marka hadii la hayraa bishan Ramadaan ciida wixii ka dameeyay way aqalgalaysay oo hawshii guriga ku dhex jirtay Ilaahay ha u naxariisto Allahu naxariiste Najma Cabdilaahi Meykal ayaa habeenkii xalay ahayd gacan ka xaq daran ku dishay magaalada Hargeysa. Najma waxay ahayd gabadh da'yar oo shaqaale ka ahayd wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland. waxaanay si gaar ah rafiiq u ahaayeen agaasimaha xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda beeraha Somaliland. Yasmin Hassan Saeed Dirir oo tacsi u diray doonta eheladii qaraabadii iyo cid kasta oo ay ka baxday Najmi kusoo dhow telefishinka CBA. Ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan halkan tacsi tiiraya leh uga dirayaa anigoo ku hadlaya afka shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha Najmi Cabdilaahi Maxamed oo gacan ka xaq daran ku dishay xalay tole magaalada Hargeysa. waxaan si gaar ah uga tacsiyadeynay eheladeedii iyo qaraabadeedii gaar ahaan hooyadeedii iyo aabaheed iyo walaalaheedii iyo dhammaan inta garanaysa muuqeeda. waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay marti la jecel yahay ka yeelo. wax kale oo ma qaban karnaa waa inuu ducaynaynaa. waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto Najma. agaasma Yasmin Allahu naxariiste Najma oo maanta sidata magaca meyd shalayna ahayd loogu yeedhay Yasmin Najma Cabdilaahi. waxa ay dadku sheegeen in bishii hore beherkeedu dhacay aqalgalkeedina loo balansanaa bacda ciidka maadaama wada haydeen dadkii iskugu dhawaa marka shaqaalanimada aad ka wada shaqeynaysan wasaaradda iyo mas'uulnimada aad u ahaydba laga yimaado maxaad kala socotay Yarimi? Ilaahay ha u naxariisto marxuumad damaanta waa marxuumad oo inaga hooseysa ha bishii dhaweyd beherkeedu ahaa sida ii sheegtay aqalgalkeedii marka hadii la hayraa bishan Ramadaan ciida wixii ka dameeyay way aqalgalaysay oo hawshii guriga ku dhex jirtay. Ilaahay ha u naxariisto. marka aqalgalkeedii arooskeedii bay imka u diyaar garoobaysay. waxaan tacsi tiiraya loo diray hooyadeed iyo aabaheed iyo dhammaan eheladeeda walaalaheed oo leeyahay Ilaahay qalbiga ha idin ka reebo eedana Ilaahay ha u naxariisto. Najma oo habeenkii xalay ahayd lagu dilay magaalada Hargeysa kiiskeeda waxa ku haya laamaha amniga ee arintaas khusayso. wixii warare ee ka soo kordha arinta Najmana waxaad kala socon doontaan telefishinka CBA. Xamse Xayd wararka lantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.